هذا إنترنت كتكتير channel سي أمار كنا نقول هذا subscribe for more وكنا إن Upwork هدي أردت إن أقرني إن أما مال قالد إن تكتاك عبسنا يصير basically واحد فرنا يسا like new explorer أما يسا chrome أنا chrome استعمالها يا سماها يا chrome استعمالها يا مركا إن لينكي هو سايدين سو دقي إن لينكي أنت كوب استقرينا يسا نوعا وإيكي هاي أنا أقوله فنا يسا مركا هالكني ما ديد waxa iska fiirisaa halkan I want to hire iyo I want to work so marka I want to work ku dhufanaysaa so waxaan nahay freelancers right so marka waxa sameynaysaa waxa leedahay sign up marka aadid freelancer ku wadana ku dhufanaysaa what describes you best caadi maxaa leedahay waxaan nahay leedahay da already haysatay waa geli kartaa meeshan login leedahay hadii kale waxa leedahay ama freelancer so freelancer leedahay tahay so marka waxa ku dhufanaysaa magacaaga gelinaysaa first name last name email sameynaysaa make sure passwordka password sameynaysaa halkan country ay ku qoran tahay meesha aad joogto waaye so country kasta aad joogtid Kenya ku dhufanaysaa akasa hadii Soomaaliya aad joogtid Soomaaliya ku qoraysaa whatever meesha aad joogtid waaye so marka waxa ku dhufanaysaa halkan create an account so marka create an account marka ku dhufatid gudaha galaysaa marka wuxuu ku dhahayaa verify marka verify haduu ku dhaho waxa sameeysaa email kaaga tag simply verify ku samee Upwork verification ku sameynaysaa saa amal Upwork notification amal ku soo diraya and then you verify marka haddana account haysta so waxaan gelinaa accountigayga so you can see gudaha so marka Upwork gudihiisa ay gashid san uu egyahay gudaha ku jirta hadaad fiirisid oo kale hadaa meesha ku dhufatid find work adadid caadi you can find work sana ku heli kartaa job yaal hadii shaqo qabatay wixii safety halkan ka helaysa proposal iyo offer halkan ka helaysa proposal waxa waaye in shaqadooyin qaar sidan oo kale oo la soo dejiyay oo caadi codsan kartaa proposal aad dirsan kartaa caadi maxal dhahay halkan waxa helaysa deliver waaye shaqooyinkii waxaad active ah oo waqti hadirkan lagu ogolaaday aad ka shaqeynaysid and all that stuff waa waxa waaye self explanatory yani waxa waaye uma baahnid macno gooniya dhinacan ay ku qoran tahay manage finances waxa waaye hada ku dhufatid kan oo kale like overview oo kale iska fiirin kartaa wixii lacag aad sameeyay accountigaas halkaas aad ka arkaysaa hada ku dhufatid bills and earnings wixii oo markiino hadda la biil gareenayo iyo earnings waxa waaye lacagta aad sameysay transactions waxa waaye lacagihii oo aad baxsatay waxyaalahaas oo kale hadii lacag ku taalo ka baxsanaysa withdraw dhaysa today there is nothing waxa uma lahan san aadi maxal dhahay inta kala baxaysa waxa sameynaysa marka withdraw ku dhufatid waxa ku dari kartaa waxay qaadanayaan halkan ka helaysa right so direct deposit aad sameysan kartaa business waxa ku dari kartaa bank account US data bank account ku dari kartaa waxa ku dari kartaa PayPal waxa kale sameeyni kartaa wire transfer so basically waxa waaye karma is did laakiin meel kale kugu dirgalay crypto oo kale waxyaalahaas oo kale so marka let's just set up so simply waxa daraysa you about to leave okay so marka waa ka bixina dhimana and so marka inta waa marka PayPal ku xiraysa waa ku connect gareynaysa account verified marka wuxuu kugu celinaya Upwork already wuu ku xiran yahay so marka save changes hada inta fiirisid your withdrawal method isn't active for security reason you need to wait three business days after you add a new withdrawal method so marka saddex bari aad sugayna and then they verify it ayaga verify gareynayo balance-gaaga markuu yahay $100 ay wax kala bixi kartaa intay kugu soo dirayaan so that's that or at least waa bedeli kartaa saa umaleynaya let me see schedule so withdrawal fee waxay kala baxayaan what do you call $1 kala baxayaan inta ka bedelaysa marka edit data schedule inta ka bedeli kartaa so hadii 200 300 whatever aragtid so marka this is minimum 100 iyo wax ka badan leeyahay so we're just gonna keep that this is your contact information profile kaaga team identity connected services verification hadii soo gali lagu dhaho billing ka tagaysa user setting ka tagaysa identity verification halkan ka cadeynaysa so hadii ay haysatid ID hadii ay haysatid passport hadii ay haysatid whatever it is halkaas ka buuxinaysa then waxa sameynaysa marka let's say hadda
let's go back. So marka si oo let's go to, you can just go inta ka tagi kartaa dib malahan, dib malahan. But haddaa inta fiiri sidoo kale profileka usoo noqonayna, but haddaa inta fiiri sidoo kale waxaa sameynaysaa kan waxa waaye profilekaaga markuu buuxsamo inta 95% mar hadda 100 markuu gaaro oo kale amise whatever it is hadda kugu jiro already skillada iyo wixii ku xareyse wax u qalmado lagu soo diraa. So marka hadda inta $10 $7 iyo data entry so marka animaba qaatabo Somali urgent Somali translator. So marka ma qaato sababtoo ah baygan caadi maxal dhahay actively ku sameeyni karaa. Actively means like shaqo inta aad wax sameeyni karaa, so I don't need it uma bahani. So marka ma codsada so most recently kuba u dhow oo kale mar dhow shaqooyinkii waxa qabatay amise yani la soo geliyay dheh. So waa kuwana and then well, this is appointment setter, US based appointment setter, and then remote healthcare coordinator. This is only US. So marka into invites waxay basically mar qaar waxay soo codsanayaan ku soo invite gareynayaan inaad shaqo soo buuxsatid. So tan oo kale hadda waxay hire gareeyeen, you can see rating kooda, or you can see inta lacag ay spend gareeyeen hadhow marka wax codsanaysid oo kale. This is very important. Lacag intay dadkan ay bixiyeen spending kooda fiirinaysa inta wax hire gareeyeen meesha ay joogaan India. So marka waa ka United States, this is verified. Sana ku ogaanaysa wixii verified lacag ay bixiyeen. This is 3 million plus ay spend gareeyeen United States ayna ku yaalaan. So these guys had already waxa waaye invite ka saddexdan ay soo codsatay invite animana ka jawaabay, right? So marka let's go ku ugu muhiimsanaad waxyaalaha ugu muhiimsanaad sameynayna. So marka inta waxa waaye notifications hadii message wax lagu soo diro, inta waxa waaye profile-ka meesha ka hagaajinayso. So if you click it maxaa ku qoran marka profile-kaaga stats iyo trending ka arkay. Stats waxa waaye yani wixii profile-kaaga soo booqday waxyaalahaas arkaysa. Account health hadii oo markina one in wax lagu soo diray, membership hadii. So this is connect is very important. Waa meesha ka gadanaysid connect waxa waaye pointyaal wada ku dhufatid oo kale waa pointyaal oo iibsanaysid oo 10 connect soo maartay. Hadda balance waxaan like ana waxa iyala 10 connects, but you can also buy 15 cent la gadaa and caadi maxal dhahay 10 connects $1. So each will have 15 cents. That's what I'm okay, let's see. So I think you can only buy 10 wax ka yar ma gadan kartid. So waa ujeeda $1.50 ay ka qaadanayaan or 10 connects, 20 connects waxa way $3 waa times 2. So marka inta point yaala ka gadanaysa connects meesha ka gadanaysa, right? But we don't need to buy any connects right now. You can cancel it. So hadda inta ku noqotid profile-ka waaye, and then waxaa kale kan waxa waaye hadda maalin joogtid habeen joogtid waa bedeli kartaa, daga ku bedeli kartaa, whatever else ku bedeli kartaa, waxa kale ku bedeli kartaa this one arrow ku bedeli kartaa, but let's just put light ku bedelena. So you don't need uma baanid kan waa account setting-kaaga waaye. Meesha hadayna waan joognay, haddaa u baahan tahay inta meeshaas ka helaysaa. Again haddaa rabto inaad bedeshid password-kaaga oo kale inaad bedeshid, haddii profile setting aad rabtid, all those things halkaas aad ka helaysaa, right? So marka of course waa qarinaya qaarkooda, but let's say haddii profile-ka ku dhufatid haddaa ku dhufatid waxa ku soo baxayo waxa ma arkino aad inaad qabatid, for example. So this is like real update aan sameynayna. Let's say caadi maxal dhahay upgrade na inaan sameeyo marabno. Let's see. So marka let's say haddaa tahay graphic designer, haddaa tahay data analyst, haddaa tahay data internet adapted, waxay aad qabatid title-kaaga waa kaas. Haddaan geliyo kan oo kale, so AI lead response system for Harvard companies. Title-kaaga waa kana, and then price haddaa ku dhufatid meeshan oo kale waa bedeli kartaa. So marka fees waay kan ayagaa baxsanaya kuwaas, kana waxaad ku soo haray. Haddaa inta bedelo waxaan ka dhigi karaa let's say 50 haddaan dhaho kale $5 ay qaadanayo, 45 kana qaadanayo, and then I save, right?
there is also like I don't know why kan u lehanin but range waxa la ku sameyn kartaa like oo kale 50 ilaa 75 oo kale range waxa la ku sameyn kartaa and then description kaaga waa kana right then profile description gelinaysa let's say profile description ka make sure hadii isticmaashid ChatGPT oo kale in oo make sure ina ka saartid waxyaalaha ma arkin like AI ga like the kan oo kale waxaan oo kale this has to go right make sure ina tafaxtirtid hagaajisid nadiifisid this is just waxa aan qabanayno overview ga aan qabanayno waaye how are we going to help qofkan raadinayo services ama qof uu shaqaaleeyo why will they choose you adi maxay ku raadsanayaan ama adi maxay ku choose garanayaan compared to like 186 other people right so marka you have to ina sidan amal u samaysid adi maxal daayaan and then another thing oo dadka ama qofka ma arkino like ku qaldamay waxa waaye markii job la soo post gareeyo and you see like a lot of dad badan inay codsadeen 80% of dadkaas codsadeen ama se application ka la diray waa automated but why iyo computerized waxyaalahaas oo kale waay so don't worry about it dirso adigana right so portfolio hadda kuma daraayo laakiin waxa waa shaqooyinka aad qabatay haddaa shaqooyin dad u qabatay haddaa skills leedahay skilladaas inta ku daraysaa like video aad samaysay screenshot aad haysid oo website aad dhistay ama some kind of aad samaysay so inta waa bedelaynaa these guys waa bedelaynaa so marketing automation okay here we go marketing automation and then waxaa ku daraysaa CRM automation lead generation waxa waaye skillada like adiga aragtid in a qabatid right automated workflow appointment setting right so marka you aad maxal dawa save garanaysa and then help client see why you are the right fit so marka you have the right chances getting hired take assessment we're not gonna take assessment so waxaan waxa waaye educationkii waxyaalahaas oo kale aan soo sameeyey project catalog and then haddaa certificate haysatid you put your certificates here so sanadaysa you put certificates manual kaga dari kartaa you can also do AI but we already have certificates employment history I'm gonna delete this one so it has nothing to do with waxaad arabna inaan sameyno right we don't need employment history other experiences okay intelligence right there you go markaad buuxinaysid waxaan like skillkan oo kale waxa waaye basically waxa sameynaysaa like algorithm ka caawinaysa waxa caawinaysaa the system oo Upwork ay caawinaysa in uu ku raadiyo inuu kugu xiro dadka raadinayo waxyaalahaas oo kale so education ku daraysa meeshan plus ta kaga daraysa license citted license plus kana kaga daraysa everything else I citted meesha kaga daraysa so marka let's say and then you save make sure in a save get everything as I said okay so marka I mention marayso you can go back here and wuxuu noo sheegayaa let's see wuxuu noo sheegayaa like percentage-ka amarayna wuxuu noo sheegayaa like so more the 40% uu marayo bis hadday 90 high hadda 40% uu marayo sababtoo we touched it anaga taabanay so marka waa kana ujeedaa so marka hadda ku dhufatid waxa ku soo baxayo whatever inta ka arki kartaa like caadi maxal daa u baahan tahay in oo hadda for example inta oo kale we can connect waxaan ku xiri karnaa we can connect to account aan ku xiri karnaa social media account aan ku xiri karnaa so let's say visibility only work
Upwork users. You can say only Upwork users, both short term and long term, and then export, it's fine, and then category kanal bedelaya because we need to choose a different one. So in the category hadda aan ku jirno waxa waaye, it's different. It's not this one anymore. It's marketing, so sales and marketing, and we are here intaan joognaa, and then we save it. We can also add another one, and then we'll say, okay, yeah, I think you can do this. Marketing, and then inta ku dhaafayna marka adapted Stack Overflow. I don't kuwan faraha lama geli, but you can connect to social media accounts ku xiri kartaa. So maaha. Okay, you can also look view يعني waxay arkayaan arki kartaa dadka ma aragta oo shaqada oo bixinay oo kale waxay arkayaan arkaysaa saan u egyahay marka. You can also look more fiirin karaan oo iska fiirin karaan, but ma ku mashquulaan waxyaalahan oo kale badanaa ma akhriyaan, they just look kuwan hore. So marka waxa ku noqonaysaa profile. Let's see, profile. So profile kan all the way to waxa loo baahan inaa geyno all the way waxa loo baahan inaa geyno 90 something. So marka qasab ma ahan, but it helps. waxyaalo fara badanaa jirta oo hadda ay ka delete gareeyay. So marka we will update another time, but the important thing waxa waa inaa ku dartid everything oo lagaaga baahan yahay inaa ku dartid, right? So I also have like agency account kala haysta, I can switch it, but for now we don't need to do anything hadda ma gelayno. So available waxa waaye lacag ka qaadanayn laakiin let's see, yeah, 14 and more loo baahan yahay. You can put badge can available. You can also boost, like you know lacag waaye, boost your profile. But aniga marka la caadi maxal dhaa iska bubuxsanaya, but what you can do is adiga for you can go here and profile kaaga ku dhufanaysa. Marka ku dhufatid waxaa leedahay profile setting, and then waxaan aad buuxinaysa marka. So ka hadalna withdraw ka hadalna marka lacag baxsanaysid, my teams hadda team haysatid, all those things. So marka basically accountigaaga meeshu ku egyahay. Sometimes wuxuu ku dhahayaa complete garay, like ama ku dar oo kale, yani ku dar more. So haddaad connect ina gadatid, connect inta ka gadanaysa. Well, we talked about it, all connects, all debts, all credits, and all those things. So buy connects are leedahay, and then so marka accountiga saasa loo furtaa marka koowaad. haddaad ina shaqo raasatid markino shaqo aarasatid waxaa leedahay find work. So find work adaysa, find work marka daadid uu furmaya. markuu furmo, so into kana profile kii haddaad waa caadi maxal dhahay samayn kartaa. But inta waxaa ka arkaysaa waxyaalaha maadaama profileka aan hagaajinay, they showed us waxayna tusayaan soo maartid a different thing than meesha hadday markaa ka bilaawnina. hadda waa AI automation and agent specialist. hadday wax kala ahayd lacagtana waxa waaye way kordhismatay $10 dinaa showinaas noomo hadda waxayna tusayaan lacag ka badan, right? So marka HubSpot, Zoho, CRM waa kuwana business to business lead generation, call in. But so maartid so marka kan 1 hour ka hor baa la soo post gareeyay. I'm gonna show you a cool trick. haddaad tagtid meeshan filterka waxaa ku dhufan kartaa like categoryga aad raadinaysid aad ku dhufanay kartaa, right? At the data analyst, data extractions, data mining, data all those things. categorygan aad ku dhufani kartaa waxyaalaha aad rabtid meeshan ay kaaga soo baxayaan. haddaa design creative, haddaa taqaanid markino waa kana illustrations, arts, music, whatever. haddaa language translation waxyaalahaas aad ka saysid everything waxa adi markino adi aad ka saysid aad samaynaysa. translation waa kuwana
all translation haddaa ku dhufatid everything kuusoo baxaya software haddaa engineer tahay all those things so marka you think let's say hadda anaga waxaan haysanaa lead generations so we're just gonna put lead generation oo kale and then you apply waxaa kaloo samayn kartaa like saacadihii lasoo geliyay oo kale job type haddaa intermediate inter ku dhufan karta inter level haddana waxaa samayn kartaa like waa iska fiirinaysaa you can choose one of these proposal yaalka number of proposal oo shaqada ay leedahay let's see fewer than 31 and client haddaa previous la shaqaysa haddaa cusub yihiin you can just say verified waxa waaye waa la xaqiijiyay in ay real yihiin so fake ku badan meeshan and then haddaa arrinta kuwan waa iska fiirin locationka waa fiirin kartaa you can say Asia or Africa America North America whatever Europeans North America right well, let's just say North America or kale North America I think we already choose it so marka kasi soconaysa duration inta ka fiirinaysa contract to hire haddaa rabtid hours per week less than 30 hours per week hal xab waaye kuwan kale way ka badan yihiin so let's just say haddaa apply oo kale it only shows you categorygaas waxay fit garaynayo ama categorygaas waxay soo galaa kala fiirna and then shan qof hadda kan oo kale shan qof wax ka yaraa proposal disatay junior sales associates okay and then saan iskaga fiirinaysaa real estate real estate lead finder so haddii kale waxaa samayn kartaa markale intaa ku noqoni kartaa waxyaalaha dhan waa ka wada bixini kartaa hal mar so you can say like clear oo kale and then apply ad haysaa waxyaalahaas dhan way ka baxayaan and then waxaa kusoo baxaya everything oo waqtigaas available so waa ujeedaa so waad dulmaraysaa and you look for work shaqaa raadsanaysaa markaa heshid waxaa ku faraxsan tahay oo kale then you click it so kana waa kana 50 la qaadanaya Google Ads management for commercial right digital marketing specialist Meta so kana amal ma qaadan kari sababtoo ah spending ma laha right so kana kale let's see they spend good money and review fiican oo haystaan we're looking for proposal 14 proposal haystaan available connects 10 okay fixed price $100 waaye we are looking for a local SEO Google Map expert to help a home service contract okay we need someone who communicates clearly and provides report showing local rankings okay hadda kuwan oo kale bela waaye kan oo kale ani camal ay anfacaya and then you can just markaa diyaarta you can simply say kan oo kale markaa diyaar like you can simply say caadi maxaa la apply markaa dhaadid 14 connects u baahan yahay let's say 14 connects u baahan yahay so you will have to buy connects so you can say buy connect haddii kugu yaraado buy connect hadii karta and then you can buy just one right we don't have promo code there's no promo code you can buy connects you can add kara ku dari kartaa so saana loo gataa marka kara ku dari kartaa amise waxaa samayn kartaa simply ama waxaa ku dari kartaa iyo paypal kaaga there's already paypal ku jiro pay with paypal adhigi kartaa horaa ku soconaysa amise kan kara ku dari kartaa you continue $1.50 connectsna laga qaadanaya okay so I believe connectigi waa u ogolaada soo aha okay now let's apply adaysa 14 connects u baahan yahay kan okay let me see how do you want to get paid by milestone no we'll say by project okay okay by project you will receive 85 how long
ayaga saanay dhaheen so 2 months ma dhino. I think that's what they said. Okay, apply. Okay, June 28th oo kana dhamaade. Yeah, specialized profiles are no longer available. All portfolio items work history has been transferred to your main profile. Submit proposal. Please fix error. So qalada dhacu leeyahay una tusaya qaladka wixii uu ahay. So marka kan, how often do you increase your rate? Every 3 months, every 12 months. How do you increase? How much? Maybe 10%, right? We don't have cover letter, but you can go ChatGPT waxaad dhigi kartaa cover letter oo caadi maxaa la dhahaa siinaysaa title-ka siinaysaa like wixii la iska rabo kan oo kale wixii la iska rabo siinaysaa title-ka wixii la iska rabo and then wuxuu ku qoraa cover letter. Participate. Okay, the product review. Review job, and I am located in United States of America. Okay, and then let's see hadana waxa kala dhahay samida dhaysa ma fiirinin wixii oo u baahan yahay. What do you call connectyaalka uu qaadanayo? Let's see, 15 connects, 24 so mehen ma 20, yeah, 5 less hare. So marka let's just say kan oo kale caadidaas ka dalbanaysa, then you submit markaad aadid your proposal was submitted kule. Now you can verify caadi maxaa la dhahay now get a identity verification badge to increase your visibility. So marka haddaa inta ku dhufatid oo kale waxay ku siinayaan like right, and then haddaa inta ku noqotid like your main pagekaaga mainka haddaa ku noqotid waxaa arki kartaa okay proposal is offer halkaasay ku qoran tahay inta ka arkaysaa marka. So markaas you can see information oo ku qoran tahay one proposal submitted today is the June caadi maxaa la dhahay proposal saasa loo gudbisana. marka intaa ka arkaysaa markay kusoo jawaabaan intan waa ka arki kartaa notification kan waa ka arki kartaa halkan. As you can see halkan caadi maxaa la dhahay payment 1.5 has been applied to your financial. hadday lacagtii waxa waaye connectan ku gadanay. So marka that's how you do it. waxa ugu badan waxa waaye inaad iska hagaajisid profilekaaga. waxaa isticmaali kartaa ChatGPT. Of course si loo qoro ma arkin oo like si loo isticmaalo ma idin soo waxaynin, laakiin waxa ugu wanaagsan waxa ugu badan kaas waaye. And then si markaa find work aad dhigi kartaa sidaad talaabooyinka raaci kartaa. And haddii wax qaas u baahan tahay amise tutorialkan waxaan ka bedelno let me know. inshallah waa ila soo xiriiri kartaan linkigan hoos ka isticmaala haddii subscribe for more inshallah. Assalamu alaikum.